casharadeenii taxanaha ahaa ee ku saabsisanaa xisaabaadka iyo arrimaha maaliyadda. bal waxaynu eegaynaa cashar ku saabsan maanta haddii waxa la yidhaahdo invoice duplication. waxaa laga yaabaa inta badan inay dadka qaar ay seefgareeyaan laba invoice oo waxweeyaan isku number ah, hodhowtooda marka la baaro ee la yidhaahdo lambarka ha lasoo qabto 1133 oo kale ee lasoo qabto waxweeyaan au noqon waayo lambarkii. marka bal waxaynu eegaynaa invoice duplicationku qaabka u dhaco iyo waxyaalaha lagu ogaanay invoice duplication. iminka haddaynu qof customer ah aynu ku qorno bal lacag aynu ku qorno, hodhowna waxweeyaan mar labaad tan customer kale aynu qorno lambarkii aynu isticmaalno, bal waynu eegaynaa qaabka programku uu garanayo iyo qaababkaas ayaynu eegaynaa. markaas waxaynu sameynaynaa qof baynu abuureynaa, yara brightnesskaynu kordhinaynaa si uu cadaado shaashadu. okay, marka waxweeyaan customer baynu qof baynu deen ku qoraynaa, invoice create invoice baynu tegaynaa. create invoice markaynu tagno waynu sugaynaa intuu soo kacayo invoiceku. markaas waxweeyaan qof baynu halka dooranaynaa, waa beri farmasigaas ayaynu ku qoranaa, alaab baynu ku qoranaa. kaas waxaan inuu ku idhi qaabka ugu fiican uu kugu soo baxayo templatekan waxweeyaan halkaas waxaad ka dooranaysaa professional. markaas waxweeyaan itemka ugu horeeya halkaas waxaad ka doonaysaa shayga dhiibinayso. okay, salbato morsay rabtaasaan iibinayaa. markaas salbato morsay rabtaa ku dhufto waxweeyaan halkaas waa saytkii oo waxweeyaan bahal anigu ii sheegayay buukan dambe saytad buu leeyahay enterprise ka la yiraahdaa. markaas saytka locationka uu ka tirsan yahay ayaa halkaa ku qoraysaa, dropship ama storeka meeshuu yahay baa halkaa ku qoraysaa. markaas waxweeyaan waxaan iibinaynaa 5 xabo, waxaanu siinaynaa $5 $25. halkaa invoice number baa ku yaala, bal waxaynu ka dhigaynaa 3 ayad baynu ka dhigaynaa. 3 ayad markaynu ka dhigno waxweeyaan waanu save garaynaynaa. save aynu aan idhaahdo waan save gareeyay, you must sign intaas wuxuu leeyahay waa inaad la xidhiidhaa. okay, iska dheh saasaan ku save gareeyay. markaan save gareeyo waxweeyaan waan sugayaa intuu save garaynayo. culays baa yara jira waxweeyaan leer intaas to add intaas. okay, waxuu ila galay kale markaan waan iska xidhayaa haddaan doono kan. okay, save and close baan leeyahayba, waxbaa save garaynba maayo. qaabkan bal midkaan ayaan ku tusayaa. okay, you must sign a site for signka waa inaad doorataa buu leeyahay. markaas siteka ayaan sii dooranaya, store baan dooranayaa. store markaan doorto waan ka soconayaa. okay, you can't have fewer serial numbers ma haysid buu leeyahay. okay, waxba dhibaato ma laha, 4 aid iga dhig. 4ka aid baan save garaynayaa. okay, save and new baan leeyahay. save and new marka uu save garoobay waad aragtaan lambarku wuu isbedelay. waxweeyaan 3 aid ba marka hore 4 aid buu ahaa, marka uu og yahay inuu kor u soconayo lambarku kor buu wadayaa. marka aid name baa la sii soconayaa buu leeyahay. marka qof labaad baan qorayaa, qofka labaad Saahid Pharmacy baan qorayaa. markaan qoro waxweeyaan halkana shaygii baan ka dooranayaa, Agnisol ayaa baan doortay oo waxweeyaan dawo ah, Axam cream oo sayidku ka tirsan yahay, waxaan wuxuu ka tirsan yahay dropshipska. markaas halka quality-ga waxaan ka dhigayaa 9 xabo. serial numberka waan iska dhaafayaa, waxaan qorayaa $4. lambarkaas serial numberka geli buu leeyahay. serial numberka waxba geli maayo, dhibaato ma laha. halkaas lambarka hore aan ku celinayaa, 4 lambar baan ku celinayaa. inta badan juwanada waad aragteen marka xisaabiyaashu gelinayaan waxaa laga yaabaa in juwan aad mar hore gelisay oo mar labaad aad adigoo ilowsan ama waxweeyaan mar labaad lagugu soo daro, dabeetana aad mar labaad aad xareyso, dabeetana qofkii ay laba lacag ku qormaan oo waxweeyaan saas ay ku dhacdo. markaas waxaan leeyahay save baan leeyahay. markaan save aan idhaahdo waad aragtaa markii wuxuu yidhi an other invoice or credit memo already has number intaas ayaa ku jira. waxweeyaan credit memo wuxuu uga jeedaa alaab ama la celiyey oo waxweeyaan marka customerka wax laga celinayo inaga soo aragnay, ama waxweeyaan invoice caadi ah ayaa ku jira oo lambar kale. markaas solution buu ku siinaya, halkan xal buu ku siinayo can keep the number. waad ilaalin kartaa lambarkan buu ku leeyahay, but
that may cause you to confuse waad ku confuse doontaa lambarada labada haddana imika keep number labada lambar buu haynaya labada lambar ba iyagoo isku lambar oo labaduba afar ay yihiin ayuu haynaya laakiin si uu sheegay inaad ku confuse garoobi soo dhowtooli saas uu kugu sheegaya markii waxaan leeyahay already joonkan waa la geliyay marka waan ka noqonaya markan ka noqdo joonkan waa iska kansalayaa waxa weeyaan close baan leeyahay no baan leeyahay waan ogaaday already inuu joonkan hore ugu jiro programka bal waxaan tegayaa customer center kiisaan ogaado joonkan ciduu ku qoran yahay markan customer center kii tago waxa weeyaan joonada waxa weeyaan joonka invoice kaaga laga baadhaa transaction baa la tagaa invoice ka baa laga eega joonkii baan tagay 3 aid ka ahaa ayaan dooranaya 3 aid uu ku jiraa waa very pharmacy already waa uu sii jiray mar labaad baan ku celin gaari markaas saas aad irinaya waxaan noqonayaa qaabkaas waa qaabka aad iskaga ilaalinayso invoice duplication waxa la yiraahdo ama inaad invoice ama laba juwan oo isku same serial number aad geliso programka marka wax weeye waa ka taxadirtaa qaabka subscribe garee channelkan si markastaan soo gelino 10 ay kugu yimaadaan waxaan kaga tagayaa billahi tawfiiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh